Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu bilaabanaynaa casharo taxana oo aynu ugu talagalnay Ramadaanta. Waxaan ka bilaabaynaa kitaabka Arbaciin Nabawi, xadiiskiisa koowaad baynu ka bilaabaynaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Can amiir almu'miniina abi xafsin cumar bin khadaab radiallahu canhu. Amiirkii mu'miniinta cumar bin khadaab ahaa, alla raaliha ka noqdee, waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi, samictu waxaan maqlay rasuulullaahi rasuulka ilaahiyaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam naxariis ilaah ha badiyo tacaalaa ilaah korahaaye calayhi rasuulka korkiisa wa calaa aalihi iyo rasuulka dadkiisa wasallama nabadgelyo allah ku badiyee, yaquulu isagoo leh, innamaa in kala maahee al acmaalu camaladu binniyaat waa niyooyinka. Camaladu waa maxay? Camaladu waxay ka kooban yihiin ama ay ka dhashaan isku tagga wixii af laga sheego oo qowl ah iyo wixii jidh laga sameeyo ama jawaarix laga sameeyo oo ficil ah. Labada isku tagkoodaa la dhahaa camalo. Camaladaas niyo la-aanteed ma sugmaan. Wa innamaa in kala maahee likulli imri'in qof kastaaba maa nawaa wixii uu niyeystay ayuu leeyahay. Famankii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu, safarkiisu ilallaahi ilaahay xaggiisa, wa rasuulihi iyo rasuulka dartii, fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi wa rasuulihi waxay noqotay hijro ilaahay dartii iyo rasuulka dartii loo hijrooday, waana laga aqbalay, waana laga abaalmarinayaa. Waman kaanad kay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunyaa adduunyo yusiibuhaa uu helo, aw imra'atan ama gabadh yankixuhaa uu guursado, fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waa waxaa uu soo hijrooday. Marka camal la niyeysanayo oo waajibaa camalka in la niyeysanayo in lagu dhawaaqo, sida in la dhaho usalli salaatu duhuri 4 ragcaati. May waa bidco oo nebiga kama sugnaan. Salaadana waxaa lagu sifeeyaa ama lagu qeexaa hiya aqwaalun wa afcaalun makhsuusa mufattatixatun bitakbiir mukhtatimatu bitasliim. Waxaa lagu xidhaa allaahu akbar, salaam naqsina waa lagaga baxa. Niyo ka horeysa oo usalli fardi la yidhahdana ma jirto, nebigana kamay sugnaan. Haa, way jiraan camalo si gaara ay u soo aroortay in lagu dhawaaqay niyadda, sida talbiyadda xajka, labbayk allaahumma labbayk in la dhaho. Sidoo kale waxaa ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam udxiyada markuu nebigu gowracayay inuu yidhi, allaahumma haadaa minka walaka taqabbal minii haadaa can muxammad wa aali muxammad wa can ummati muxammad. Laakiin ma bannaana salaada oo kale in muxuu ahaayey niyad lagu dhawaaqo. Haddaynu u nimaadno fawaa'idda xadiiska laga qaadanayo, waxaa ka mid ah 1, niyaddu inay aasaaska camal kasta tahay. Camal kasta qiimihiisu waxa uu ku xidhan yahay niyadda. Haddii niyaddu sax tahay, camalkuna qiimo ayuu yeelanayaa, waa la aqbalayaa. Qodobka 2, camalka caadiga ah wuxuu isu bedeli karaa cibaado. Tusaale, waad shaqaysaa, waxaad u shaqaysaa si aad irsiq xalaal u hesho, waad cibaadaysatay. Haddaad u shaqaysato inaad lacag heshana waa iska caado. Qodobka 3, daacadnimadu, ikhlaasku waa furaha aqbalidda. Allah wuxuu eegaa qalbiga iyo ujeedada arrinka laga leeyahay cibaadada ah, ma aha oo keliya muuqaalka camalka. Camal bilaa niyada wuu buray.
qodobka afraad aan ka qaadanayna waxa weeye ka digtoonow riyada, ismuujinta, istusnimada. Haddii camalka loo sameeyo ammaanta dadka, ajarkiisa wuu baaba'ayo. Xadiiskii nebiguna waa kii ahaa qofaa u soo jihaaday oo u soo dagaalamay in la dhaho hebel geesi buu ahaa, uu dagaalamay. Aakhiru yimaadaa isagoo waxa weeye jihaadkii uu galay sugaya waajib camalkiisii in lagu abaalmariyo. Allahna wuxuu dhahaa waxaad u cibaadaysanaysa u jihaadaysa in la dhaho ninkaasi waa geesi, waa laguu yidhi. Taasina waxay muujinaysaa in camal ismuujin lagu sameeyey niyad aan lahayn aan aqbal lahayn. Qodobka kale aan ka qaadanayna waxa weeye niyaddu qalbiga ayay ku jirtaa. Looma baahna in qofku afka ka dhawaaqo. Niyadda waa go'aan qalbi ah. Sidaan xusnay way jirtaa marar gaara oo lagu dhawaaqo. Qodobka u dambeeya aan ka qaadanayna waxa weeye cadaaladda Allah. Qof kasta waxaa la siinayaa wuxuu niyeystay. Allahna cidna ma dulmiyo. Qofka Ilaahay dartii wuxuu niyeystay, Ilaahay dartii wuu helayaa. Qofkii adduunyo darteed hawl u galay waxa weeye adduunyadii wuxuu ka heloon buu leeyahay, aakhira wuxuu uma yaalin. Xadiiskan waxaa wariyey Imaam al-Muhaddisiin Abu Cabdillah Maxamed bin Ismaaciil ibn Ibraahim Bukhaari iyo Imaam Muslim Abu Xuseen Muslim bin Xajaaj. Wabillahi tawfiiq. Intaas uu ku eegaya casharkeennii koobaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.